bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu wanaagsan akhyaarta hawada daawatay ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida gaar ahaan maqal wareedkan waxaynu ku eegaynaa intuu soconayo hadduu eeba idmo dowladda dalkaasi Mareykanka oo duqeymo culus ka fulisay Soomaaliya haddaba duqeyntaasi xagee laga fuliyay xagee isa ka dhacday intaan ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadlan maqaalka la saar oo sheer garay oo geeyay oo baahan xogtan aynu ku bilownay saaxiibayaal taliska ciidamada Mareykanka ee Africom loo yaqaano ayaa shaaciyay inay duqeyn cirka ah ka fuliyeen Puntland ayna la beegsadeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda Daesh waa sida warka loo dhigay weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay dhulka buuraleyda ah meel lagu qiyaasay 30 mayl inay u jirto koonfurta bari ee ku beegan magaalada dekedda leh ee Boosaaso xarunta ganacsiga ee gobolkaasi bari bayaankan Africom ay soo saartay ayaa lagu xaqiijiyay duqeyn laga fuliyay 17 Abriil xilli Mareykanku uu sii kordhinayo weerarada cirka ah ee uu ka wada gudaha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Africom ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo dheeraad ah oo ku saabsan howlgalkaas mana shaacinin khasaaraha ka dhashay duqeyntaas haddii uu ahaan lahaa mid nafeed iyo mid waliba arrintan ayaa qayb ka ah siyaasadda cusub ee Mareykanka oo qaaday tan iyo sanadkii hore taas oo ku aadan in la yareeyo xogta la shaaciyay ee la xiriirta xogta military ee Mareykanka dhanka kale Mareykanka ayaa sidoo kale duqeymo ka wada koonfurta Soomaaliya halkaas oo toddobaadyadii la soo dhaafay ee ugu dambeeyay ay ka socdeen dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyadka khawaarijta shabaab duqeyntan ayaa inta badan lagu bartilmaameedsadaa goobaha ay ku sugan yihiin hogaamiyaasha dagaalamayaasha sare ee kooxda khawaarijta shabaab ayaa lagu sii sheegay si kastaba ha ahaatee heerka duqeynta ee Mareykanka ayaa hoos u dhacday xilligii ugu dambeeyay ama ugu sareeyay in xiisadaha la xiriira Iran haddana Africom ayaa weli sii wada howlgallada military ee Soomaaliya warbixin kala duwan oo muujinaysa in Africom ay ku dhawaaqday in ay jebisay rikoodhkii sanadka ee duqeynta ee Soomaaliya waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal waxyaalihii dambe ka soo cusmaanada maqaalada kale ayaynu ku daawad doontaan isku leegi doonaa fadlan maqaalada kale ka saaro sheer garay u geeyay doobaha nabad